إنا لله وإنا إليه راجعون وادل جرك الدحصون degdeg hilibka dadkii maqaaxida ku jiray oo dhulka daadsan muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal qaraxa ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo qasaaraha nafeed oo geystay balse intaan u guda galin muuqaalka like saara si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin bogaana follow soo dhaha si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran mahadsanidin aynu ku bilownaa faahfaahinada dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo nafti haliga ah qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho qaasatan degmada Boondheere ee gobolka Banaadir iyadoo qaraxa lala eegtay goob maqaaxi ah oo ku taalay degmadaasi isla markaana u dhow agagaarka daljirka daasoon maqaaxidan ee weerarka uu ka dhacay ayaa waxa lagu magacaabaa Top Cafe waxayna ku taalaa meel u dhow guriga Maxamed Dheere oo ku yaala inta u dhaxaysa isgoyska Jubba iyo sidoo kale taalada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho goobta uu qaraxa uu ka dhacay wali waxa laga maqlayaa risaas teelteel ah oo cid ridaysa aan la garanaynin sidoo kale maqaaxida uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa laga daawanayay ciyaar sida ay nala wadaageen dad goob joogayaal ah oo markaasi maqaaxida ku sugnaa wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in qasaaraha qaraxa uu geystay uu yahay mid baaxad weyn dadkii ku jiray maqaaxida ayaa hilbahooda ay daadsan yihiin dhulka sidoo kale dhalinyaro 9 ka koobneed oo fadhisay afaafka hore ee maqaaxida ayaa gabi ahaantooda dhintay waxaana ilaa haatan la kala garan la'yahay hilibka dadka halkaasi daadsan iyadoo laamaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya durbaba ay u dhaqaaqeen dhankay waxa ay ka dhaceen jagaboontiyo kala duwan ayaa u dhow goobta ay waxa ka dhaceen amnigeedu waa uu adag yahay sida inta isticmaasho wadadaasi ay ogtahayba laakiin ilaa haatan waxa la garanaynin sababta ka dambeysa in meeshaasi uu qarax uu ka dhaco iyadoo muuqaalo kala duwan oo aad dhif iyo naadir u ah laga soo gudbinaya halkaasi isla markaana aadan indhaha u dhameystiri karin daawade maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa amnigeeda uu faraha ka baxayay iyadoo maalintii shalay ahayd uun la weeraray xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii rag xukun dil toogasho ay ku xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay jaanis u heleen in mid ka mid ah askartii ilaalada ahayd ee ilaalinaysay xabsiga dhexe ay qoray ka qaataan sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee asluubta isla markaana ku shaqada leh ilaalinta xabsiga dhexe saraakiisha ayaa tilmaamay in qorayga ay ka xoogeen askariga isla markaana ay sidaasi ku bilaabatay dagaalka kadib markii rasaas ay fureen oo ay xabadeeyeen askartii waardiyaha ka heysay xabsiga dhexe ee Xamar taa ayaa keentay in 5 ka mid ah dadkii weerarka geystay la dilay sidoo kale 18 qofood ay ku dhaawacantay halka 3 askari ay ku dhinteen 3 kale ay ku dhaawacmeen daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saar si share garay oo la wadaag saaxiibada bogaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid